السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو واسماعيل موسى اسماعيل سيد برتا ديقل السعوطان أما ديقل داوانيسانا وبرتان كل هاي مريقتا يوتيوبكا اسماعيل سيد فردان دادقو عصوبتا يقصو دو ركومان وصنكوكون نقض الراس إن ما انتالكو حنو قصو قد بين دونا كلمة دي روكوابن وان بيحيي حاقلدان حاس بدلي سيدا يحييهين هدي أنو دوبا ايقنو عصر ولا او جيرابا دادبان نولا عصر والبا جيل با جيري او نولان جيري جيل كاسيني سيو دقمان بلاهاين إنو هديونو ايقنو نولوشي إنو هريا عصر جينا قهري khaasatan dadkeen reemiga ahaa noloshu waxay ahayd sida tan iyada ah bay noo soo baxayso hooyadu waxay ahayd qofka reerka rugniga koowaad ah inta guriga gudihiisa rugniga koowaad ee lambar 1 ka oo ah bay ahayd hawlaha ay qabataan way kala duwanaayeen waxa ku ka ahaa dhisida guriga habeentiisa qorsheyntiisa kala nooc ah ee kala duwan mid walba nooc laga dhigayo hooyada kala jiifsanayo korinta ubadka mid yar iyo mid weynba ilaa ay ka hana qaadayaan ka reero gelayaan rag iyo dumarba iyada la kacay jirto la kifaaxay jirto la kufi jirtay aabuhu hawl gaar ah ayuu lahaa wuxuu ahaa hormuudka reerka taliyaha guud buu ahaa geedigiisa iyo raridiisa maalida geela noocyadiisa kala duwan mid la maalayo mid la foofinayo mid la hargeynayba waraabintiisa iyo darka yeelka inuu hayo sahantaga loo sahantagay reerka la hayaaminayo kolba kaynaan ilaa ka kaynaan kale loo raraayo مسؤوليتيسا halkiisa oo ahayd kuruhu ama kureyga yar ama inanka yari waxay ahayd isagoo mas'uuliyadiisu mid gaar ah oo geelay iyo gaawihiisa iyo xargeyntiisa iyo raridiisa iyo kala wadidiisa ah inanteenu hawl bay lahayd inanta gashantida reerku iyaduna hooyada kaabideeda xoolaha dhaqaaleynteeda ariga raacdiisa ay ahayd sidaas oo aynu ahayn dhamaanteynba noloshu miya qalafsan iska ahaatee barwaaqo sooran baynu ku noolayn dad waxaynu ahayn qurux badan dad waxaynu ahayn faraxsan dad waxaynu dhaqan iyo suubanaan iyo akhlaaq leh maanta aynu horumar gaadhnay aynu horumar sheeganayno aynu aqoon sheeganayno oo aynu dad casri iyo horumar gaadhnayno nolosheen maxay isbedelay sida tan maxay tahay heerkan maxayna gaarsiiyay halkan maxayna dhigay nolosha caynkan eeg maxaa la yiraahdaa tolo maxay iska bedelay sidee wax u jiraan fakiro aniga iyo inta ila gida ah dhalinyarada casriga noole xagan u socona hogaanka xagad ugu qabateen xagadina qabadsiiseen aniga inta wax ka sii faahfaahsan oo xumaanteena beelaha bulshada ka buuxda aan halka soo badhigaynin bal hada jidkan cad ina keenayo wadadano hogaankeena xagu ku socda xagad ku wadaan bulshooy dhamaanba khaasatan jiilalka cusub ee hadda aanu isku dhalinyartanahay waa su'aal inoo taale xagad ugu wadaan xagadina qabansiinaysan hogaankeena iyadu dhiibteen safarkii iyo keenaankii geedigan ku jirno xagadan ugu wadaan dhammaantiinba waxa idin ka sugayaa jawaabo waafiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.